Wuxuu ahaa boqor ka hadlay xaalad qoorta laga jari jiray cid kasta oo u dooda qaabka uu u dooday. Wuxuu kor u qaaday nasabka Carbeed iyo sharafta hablaha Carbeed. Ninkan aynu ka hadlaynaa waa Nucmaan al-Mundir, oo aynu maanta qaarkeenan ku soo qaadan doono sooyaalkiisii. Magacaygu waa Jimcaale Daahir, halkanina waa Wasl-Guard Media. Marka laga hadlayo Carabtii hore, ma jirin dowlad ama boqortooyo ay isku maamulaan, balse waxay isku maamuli jireen qaab qabiil ah oo ay suldaanada iyo ugaasyadu maamulayaan qabiilka. Hase yeeshee, waxaa jiray 3 maamul boqortooyo oo ay lahaayeen Carabtii hore. Waa boqortooyadii Yaman, boqortooyadii Shaam, iyo boqortooyadii Ciraaq. Waa tan aynu maanta marjaca dhiganayno, oo ay ka talin jireen Boqor Mundir iyo qoyskiisu. Haddaba, kumuu ahaa Nucmaan al-Mundir? Wuxuu ahaa boqorkii ama duqii Carabtii magaalada amaba Ciraaq oo ay caasimadoodu ahayd magaalada Xiraa. Wuxuu xilka uga dhaxlay aabihii Ibnu Mundir, wuxuuna ka mid ahaa Carabtii qaadatay diinta Kiristaanka qaybta Kaatooliga. Wuxuu xilka qabtay 582 miilaadiga ilaa iyo 609 miilaadiga, markaas oo talada laga tuuray isagana la dilay. Intii uu xilka hayay, Nucmaan al-Mundir waxaa la soo wariyay in boqorkii Faris oo hoos tegi jirtay boqortooyadii Ciraaq uu u soo galay Nucmaan al-Mundir isaga oo la fadhiya wufuud ka kala socotay duqeydiisii dalka Shiinaha, Kanada, dalalka Shiinaha, Hindiya iyo Turkiga, kaasoo ugu faanay nicmada iyo hodantinimada ay kuwan leeyihiin ee Carabna leeyihiin, Carabna aysan lahayn. Balse uu Nucmaan al-Mundir uga soo faallooday isagoona kula dooday sifooyinka qarsoon ee ay leeyihiin Carab. Isagoo waxaa ka mid ahaa astaamihii uu soo bandhigay inay haddii ay marti u soo hoyato ninkaasina uu leeyahay ur qura uu u qalayo inay yihiin dad isla qab weyn iyo qaar la mid ah, iyo astaamo kasii xagjirsanba, kuwaas oo lagu gulloodsiiyey billado. Mana dhammaadkii xilkii Nucmaan al-Mundir ayaa lagu soo diray boqorkii magaalada Faris, isaga oo lagu yidhi ka codso inuu gabadh ku dhiso. Isagoona ka codsaday inuu gabadh u dhiso, balse uu aad uga dhiidhiyay Nucmaan al-Mundir, isaga oona yidhi hadal tisqaad noqday oo muddo badan lagu soo celceliyo ahaa doofaartii Faris miyay ku fillaani waayeen. Haddaba, iminka haddii ay Carabtan joogto, haddii uu boqorka amaba madaxda sare xagga sare ka xukunta, haddii ay gabadh ka codsadaan, miyay u diidi lahaayeen? Daawaday aragtidaada nagula wadaag qaybta